السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena Hikaadshe. maanta waxaan qaadanaa 10 English oo ciwaankiisu yahay Other ways to say how are you. qaababka kale ee lagu yiraahdo sidee tahay. How are you means waxa weeye sidee tahay, maxaalada ka waran, xawaashi ka waran. saadaradeed waxaan baranaa qaabab kale oo lagu yiraahdo eraygan how are you inaad ka kaaftoontid oo isticmaashay erayo kale oo la micno ah laakiin si xoogaa English ahaan marka qofka la hadlayso uu ku moodayo qof English si fiican u yaqaan wayna tahayba. halkan waxaan ku soo qoray nambaro, halkan waxaan ku soo qoray salaantii, halkan sidoo kale waxaan ku soo qoray qaabkii uga jawaabi lahayd. haddii salaanta lagu salaamo qaabkani waa qaab macquul ah inaad uga jawaabtid. haddii waxa weeye adigu aad ku salaantid qofka qaabkan kale inuu uga jawaabo waa waxa ka rajaynaysid. marka aan bilowno kan koowaad ama salaanta koowaad waxa weeye what is going on. What's going on marka qofka salaamayso macnaha ma u kala dhigdhigaysid, laakiin hadda 10 baan baranaa. لكن قفك ما كسلامسد يا أنا gonna say ما دهسد what is going on. ساسو كل ما هندسد واحد هذا what is going on. What's going on. What's going on مركو قفك ساسو كل كسلام محل هذا nothing. جوابته أكبر حين سحوي nothing يعني محاس سوي أحواش هذا وكويدين مركو حوي سيادة ما شرته not much. واحد منطقة سيادة ما شرا. qaab kala baad how have you been tan waxa la isticmaalaa inta badan markii mataqaana salaamisid qof xoga kala maqnaydeen horeyna ay isku taqaaneen. marka waxa leedahay how have you been sidee ahayd xaaladda ka waran xawaashadani ayaamaan ismaan arag. markaas wuxuu ku leeyahay pretty good sax waa wanaagsanahay, I'm good waa wanaagsanahay, I have been good waa wanaagsanahay ama waa wanaagsanahay, I have been all right waa wanaagsanahay ama waa wanaagsanahay. afartan qaab iyo ka badan boo looga jawaabi karaa, laakiin waxaan soo xulay qaabab yar yar oo aad isticmaali karid xifdina kadib waxa weeye macnaheedu iska cad yahay. qaabka saddexaad waxa la yiraahdaa how are you doing. How are you doing. How are you doing marka qofka ku salaam saxaad how are you doing sidee tahay way I'm doing well waa wanaagsanahay, I'm fine waa wanaagsanahay ama waa fiicnahay, I'm good waa wanaagsanahay ama waa fiicnahay. erayga ama salaanta afraad waxa weeye how is everything. How is everything. How is everything. How is everything wax walba xaaladda guud ahaan ka waran way wax walba iska waran macna not bad. qofka waxa ka wareysanaysaa yani waxa ka weydiinaysaa meel walba oo suurtagal tahay inay mataqaana wax ka imaadaan ama wax ka jiraan cusub oo aadan ogeyn baarta inaa weydiisid. marka waxa leedahay how is everything ka waran iyo axwaasha guud xaaladaha guud ka waran. markaas wuxuu ku leeyahay not bad ما حما صاحب great ووناكسنا good ووناكسنا great good not bad they all same معناها واسكو ميد لكن حقا معناها اما ارياده لاستعمالها ايا كلا دوين. قابك شناد waxa leeyahay what's up man وري marka leeyahay what's up معناها waxa way xaaladda ka waran way see tahay seba ugu jawaabaysaa all good here. halkan waa wanaagsan macnaha aniga dhankayga baa macnaha kalsa all good here marka leeyahay all good here dhankaygu waa maasha Allah waa alxamdulillah waa wanaagsan hawi. hey what's up with you adigana iska waran baa leedahay hey macnaha waa jawaab celin la mid macnaha anigu waa wanaagsanahay adigana iska waran. same old wani xaaladii wax siyaada ma jiraan way same old يعني macnaheedu waxa weeye wani wax isbedelay oo siyaada ah oo soo kordhay nolosha oo aan ku sheegi kara iminka ma jiraan. am okay mid ama qaabka kale I am okay وناكسنا عادي باهي wax siyaada ma jiraan kale way thanks for asking. markaas waxa leedahay qofka mataqaana waa u mahad celinaysaa inuu ku weydiiyo macnaha xaaladaada tusaalahan kale. thanks for asking mid walba waa isticmaali karaa qofku inuu xaaladaada ku weydiiyo. qofka hadduu xaaladaada ku weydiiyo waa qof macnaha ma sha Allah yani de mahad celin mudan. marka waxa dhahaysaa thanks for asking inay weydiisay waad ku mahadsan tahay. 10ka intaan ayaan ku soo koobaya. هذا هورين ولا شوكتي فضلا لايك تي شيرت يا كومنتيها كبخيل. هذا نقول عصب تهنا نقول صبير. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.